بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي باكليدي مهدله مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو maanta oo ay taariikhdu tahay 6dii bishii labaad 2025 wuxuu magacaabay guddiga heer qaran ee qiimeynta khasaaraha iyo taakulada dabkii suuqa idaacadda ka soo dhacay 3dii bishii labaad 2025 ku socota dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku qoran sidaad ka warqabtaan waxaa jirta masiibada dabku inay nagu soo noqnoqotay baryahan dambe dabkaasi oo inta badan ka dhaca goobaha ganacsiga masiibada dabkuna waxay khasaare ballaaran u geysataa hantida dadka shacabka ah nafta aadamaha iyo sidoo kale dhaqaalaha guud ee dalka masiibada dabku waxa kale oo ka dhaca goobaha degsiimooyinka ah ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ah isagoo oo sababa inay gubtaan guryo badan oo ay ku noolaayeen dad danyar ah sidoo kalena ay ku naf waayaan dad shacab ah haddaba aniga oo maanka ku haya mas'uuliyadda xukuumadda ka saaran daryeelka iyo gurmad u fidinta dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoolo waayay dabkii ka dhacay suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa sidoo kalena yaqiinsan mas'uuliyadda xukuumadda ka saaran xal u helidda masiibooyinka dabka ee baryahan dambe inagu soo noqnoqota waxaan idin magacaabay inaad noqotaan guddida heer qaran ee qiimeynta khasaaraha iyo taakulada dabkii suuqa idaacadda oo u xilsaaran howlaha soo socda soo qiimeynta khasaaraha uu geystay dabkii ka dhacay suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa 3dii bishii labaad 2025 2 maamulidda iyo isuduwidda howlaha gurmadka ah ee lagu taakulaynayo dadkii khasaaruhu ka soo gaadhay dabkaasi 3 ka soo tala bixinta waxyaabaha keena iyo xal u helidda masiibada dabka si looga hortago inay masiibadaasi marka dambe waxyeello u geysato nafaha iyo hantida dadka shacabka ee ummadda reer Soomaaliland qaab dhismeedka guddida heer qaran ee qiimeynta khasaaraha iyo taakulada dabkii suuqa idaacaddu waa sidan soo socota guddida waxa gudoomiye oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta waa gudoomiye wasiirka wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarka magaalooyinka waa gudoomiye ku xigeen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiisku waa xoghaye wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waa xubin guddida ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu isna waa xubin ka mid ah guddida wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta waa xubin wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta isna waa xubin duqa magaalada Hargeysa waa xubin garyaqaanka guud ee xukuumadduna waa xubin kale taliyaha ciidanka dabdamiska waa xubin gudoomiyaha rugta ganacsigu waa xubin guddidaasi waa guddi ka kooban 11 hay-adood ee aan soo sheegay haddaba waxaan idin farayaa inaad hawshaasi u gudataan si mug iyo miisaanba leh waxa kale oo aan farayaa hay-adaha kale ee dawladda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu in ay la shaqeeyaan guddidan heer qaran kana gacan siiyaan howlaha ay idinka baahan yihiin allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland